agaasimi hore hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloshe ayaa dhaliilay qaabkii ay u dhacday doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe taasoo lagaga guuleystay kursigii hore ee baarlamaanka waxaana uu ku eedeeyey in dowladdu ay faragelin ku samaysay doorashadaas islamarkaasna ay dhaqaale ku taageertay murashaxii isaga kaga guuleystay Nuur Iidow Beyle wariyana Haarun Macruuf ayaa kula xidhay khadka telefoonka Muqdisho waxaana uu weydiiyey sida uu arko doorashadaasi. bismillahi raxmaani raxiim. Haarun waa mahadsantahay, waana ku faraxsanahay inaad ila soo xiriirtay oo aad wareysiga qaadaysid. Runtii waa run 28kii bishii January waxaan tartan ku galnay aniga iyo koox kaleeto oo danaynaysay kursigii aniga aan hadda ka hor baneeyay baarlamaanka. dabcan dabeeciyadna anigu hadda siyaasad ayaan ka shaqeeyaa. haddii meeshii xilkii dawladda ay magacooda laga qaaday meesha kale ii banaanday baarlamaanka siidkaygii oo aan la buuxin inaan dib u noqdo fursadaas waa ii muuqatay. bacdama hadda siyaasi aan ahay muddana aan siyaasadda kusoo jirana meesha keliya hadda aan dhaqdhaqaaqayga siyaasadda iyo hawlahayga siyaasadda aan kasii wadi karo oo ugu muhiimsan inay tahay baarlamaanka awlan aan kamid ahaa. saas darteed ayaan ugu tartamay. waa gartay. ugu dambeyn kursigii waa lagaaga badiyey, xildhibaan kalaa kaa badiyey. doorashadu see u dhacday ma ku qanacday? horta kuma faraxsani, laakiin inaan aqbalo dabcan way tahay. runtiina waxaan aaminsanahay waxyaabaha keenay in oo kursiga aan loosgarayo ama aan waayo oo ay 3 arrimood asaas ay u tahay. mar waa guddiga doorashooyinka habka ay u handalgaleen ama ay doorashada u wadeen processka ay muddo jiidayeen. mar hore ayay ahaaday inay qabtaan doorashada, way cagajiideen. sidaan dareensanahana faragelin ayaa dawladda ku haysay. haddana si toosa dawladda ayaa faragelin usoo samaysay oo gacan muuqata oo maaliyada siisay ninka kaleeto hadda kursiga qaaday. tan kalena waxay tahay dee dadka wax dooranayo oo iska garanaysaay oo wacyi badan aan lahayn waxa la isku haysta iyo aan wax badan ka fahamsanayn oo ay sumaysay maalgelintii ama dhaqaalihii faraha badnaa dawladda meeshaas kusoo samaysay oo dee marna dareenkooda ay wax ka bedeshay. marka runtii faragelinahaas iyo caqabadaha iga qabsaday guddiga doorashooyinka iyo arrimahaas ayaa sabab ah inaan waayo. maxaad ku cadaynaysaa in dawladdu ay xildhibaanka kale taageeraysay? wax cadayna miyaad haysaa mise waa tuhunun? wax tuhun layidhaha ma jiraan. oo dadkaan waa dad ehela, waxba uma kala qarsana. waa la garan karaa dee baarlamaanka marka lagu soo biiraayo xildhibaanka waxa ku bixi kara waad ka garan kartaayo doorasho kasta qaash iyo xoolo kaa maaranto. marka wax oo loo qaateyna waa jiraan. marka yani dadkii ay doorashada ama delegateski dadkii doorashada fuli lahaa ama wax dooran lahaa si kayru caadi loo kororti garayo ama xoolo kayru caadi oo wareeriye la siiyo waa garan kartaa dee in oo natiijada meeshaas ay saamayn weynu ay ugu imaanayso dhinacaas. marka waana la ogyahay qof kastaa og, ergadii og, odayaashii og, magaalada dadkii jooga mas-uuliyiinta og, dadka tartamayaasha og, qof kastaa og in faragelin toosoo dawladda ay ku jirto. waa gartay. dawladdii tan ka horreysayna waxaa la lahaa xildhibaanada iyo sida loo soo doorto way faragelisay. marka ilaa haatanna tuhunka kasoko wax caddayna oo lasoo bandhigay inay iyagu maalgeliyeen ma jirto caddayn oo loo hayo oon ka ahayn tuhun weyn oo la qabay Soomaali iyo ajaanibba ay qabeen. marka su-aashaan u socda waxa weeyaan wax tuhun ma jiraan Haarun, tuhun keliya ma jiraan oo cid hadda meel cillaa ka cadaynaysa ma jirto. aniga iyo qofka iga soo horjeeda markaan tartanno oo tabartiisana qofkaas miiska la yimaado ana aan sayda la imaado haddii aan ku kala badino wax problema ma jiraan. laakiin xoolihii dawladdu hadda sheegta mar walba in corruption ay la dagaasho oo haddii ay hal kursi $1 million ka badan ay geliso sidaa la socotina hadee daruufaha dalka ee dhaqaalaha ama hay-adahayna ammaanka haysta ama hay-adahayna kale dawliga haysta ama hadda kasoo qaba madaxweynuhu safar uu ku tegay gobollo aada fara badan iyo deegaano fara badan mashaariic fara badan soo dhagax dhigay oo mali halkaas malyan oo lagu bixiyay kursiga doorashadeeda haddii la gelin lahaa mashaariicdaas at least commitmentiga dawladda ay gashay wax badan ka dabooli lahayd. marka hadda waxaa la yidhi waxaarunimaysan qaadin kana daba yeeraan. qof tuun keliya ka qaylin laha ma jiro. waxaana ergadii og, odayaashii og, lacagtii la baxshaa loogyahay, waktigii la baxshaa loogyahay, evidences waa loogyahay. dadkii o dhan hadda la keeni karaa qofkii qaataa oo kii baxshaa og, wax kasta waa loogyahay. waa gartay. laakiin cid hadda oo meel cillaa oo ka samaynaysa case ma jirto. laakiin adiga iyo dawladda waad iswadateen, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha rag saaxiibbaa oo isla soo shaqeeyey, isku dhow baad ahaydeen. xataa xilligii ay ololaha doorashada uu ku jiray madaxweynaha aad baad ugu dhoweyd. maxaa dhacay oo keenay inay taageeraan xubin ama kula tartamaysa ama kaasoo horjeeda? marmarka qaarkood dawladaha maaragtay kooxaha diimuhu ay la kuleeyihiin dadka iyo wax kasta oo khaldanay samaynayaan waxay ku marmarsiyoodaan ilaahay dartiis inay ugu dhawaanaan. malaha
dad waxaa jira ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu haddaysan xitaa toos lug ugu lahayn mana qabayn ayagu toos lagu leeyihiin dad ayaga ka agdhowa malaha dadkan in siyaasadda laga saaro oo la dhibo oo xoolaha dawladda si qaylo caadihi oo qarriban loo qasiro ilaahay ugu dhawaanaya jira ama aan doonaninba dadka firfircoon oo siyaasadda saamaynta ku leh inay saaxooyinka ama platformka siyaasadeed ay kusii jiraan aan danaynaynin ama buufisas ka qabo qofkii maalin ay tuhun iyo xoogaa ii sheegeen kala aragti wadawanaasha ay soo dhex marto cabsi ka qabo haddii baarlamaankaas uu soo galo in culays siyaasadeed iyo yani fighternimo aniga layga baqaayo waxtaas laakiin anigu hadda degmaba kursiga xildhibaanka isbaara kamaba dhigteenba mid aan dawladda ku caawiyo noqon lahaa mid aan dalka ugu adeego noqon lahaa mid aan dadka ugu adeego noqon lahaa mid aan constructive hataa haddii aan mucaarad noqonayo mucaarad waxtara oo wax toosiyaan noqon lahaa mooyaane mucaarad anarka ka shaqeeya oo dawladda aan kula dagaalamo raba horta ma noqdo marka malaa waxaa la yidhi dhurwaayi ilmo isma jecla waana isna cel yihiin amana istaqaanaan waana loo kala sheeko xumeeyey marmarka qaarkood waxaa jira macalinka inuu ardayda u fiican yahay laakiin kabiirka u dareema malaa kabiiradii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha kasoo hesaya weerarkaan si toos ugu lug lahaa kaasi wuxuu ahaa agaasimiye hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambalolshe oo khadka telefoonka muqdisho ugu warramayey waa khadka telefoonka muqdisho wuxuu ugu warramayey waryahayga haaruun macruuf waa tahay maxamed oo dhinaca kaletana waxaa eedaasi kasoo yeertay cabdulaahi maxamed cali sambalolshe beeniyey nuur iidow bayle oo isagu jagadaasi ku guulaystay waryaheena jamaal axmed cusmaan ayuuna u warramay nuur bismillahi raxmaan raxiim marka u horeysa waxaan mahad celinayaa bahda v o da arrintaas runtii doorashadaasi markii ay dhaceysay iyo markay socotay iyo qabanqaabadeedii iyo intii ka horreysay doorashada markay qabsoomaysay intaba yani musharaxiintu way ku qanacsanaayeen markay dhacdeen muraaqibiin goobjoogayaal ah iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo musharaxiinta iyo ergada iyo muxuu ahay warbaahinta caalamka oo life ah tvga qaranka oo life ah intaasba way joogeen meeshaas naftiisaana qiray walaalkeed cabdullahi sambalolshana meesha ka sheegay inay si wanaagsan oo cadaalada doorashadaas u dhacday laakiin waraysu aanu la yeelanay wuxuu leeyahay dowladda soomaaliya ayaa faragelin ku haysay oo arrintani si toos ah adiga ay kuu taageertay marka ma jirtaa in kharashaad dowladda ay kugu taageertay oo doorashada aad kaga guulaysatay cabdullahi sambalolshe runtii maya arrintaasi waa wax la dhoodhoobay wax ka jiraa ma jiraan aniga cabdullahi sambalolshe waxaan nahay dad family ah muxuu aha kursiga uu ka wada dhexeeyo waxaa ku tartamaya labadeenna ma ahayn waxaa kamid ahaa madaxweynihii hore hirshabelle cali cabdullahi cosoble waxaa kamid ahaa laba nin oo kale oo ayaguna ahaa asxaabta siyaasiyiin yar yar oo hadda soo koraya oo aan muxuu aha weli masraxa soo gelin waxaa kamid ahaa cabdullahi laftiisa waxaan hayna 5 nin iyo gabar marka arrintaasi waxba kama jiraan runtii waxyaabaha kale ee sambalolshe oo ka sheeganaya doorashadaasi dhacday waxaa ka mid ahayd in guddiga doorashooyinka ay muddo jiidayeen doorashada oo xilligii la rabay ay muddo badan dib uga dhigeen si adiga fursad lagu siiyo oo uu yidhi dowladda ayaa ku wadatay bal arrintaa ka waran anigu dalka waxaan kusoo laabtay sida muxuu ahaa 5tii bisha January ayaan ka imiday magaalada Istanbul dalka Turkiga markaasna waxaan bilaabay campaign doorashadan waxay qabsoontay 27kii bisha January campaignkaas waxaan waday 22 maalmood sambalolshe wuu joogay dalka qabanqaabada iyo muxuu ahaa ergada iyo muxuu arrintaasna isaga iyo nabaddoonadii way wada wadeen waxayna ka imaanayeen runtii ergo beesha aanu kasoo jeedno si isleegaana loo qaybsaday oo transparency ah asaanu goobjoog ka ahaa oo qabanqaabadeedii lahaa marka arrintaasi waxaan isleeyahay waa muxuu ahaa wakti la jiidana ma jirin systemkaa jiitamay oo ahaa doorashadaani inay qabsoonto sambalolshe markii uu nabad sugidda tagay April 2017 ha yeeshee waxaa la isku haystay dastuurka oo lalahaa dastuurka ma qabo in ayadan lagu dhaqmo doorasho dadban kuraastan loo qabto iyo in doorasho dadban lagu dhaqmo arrintaasa yani guddiga doorashooyinka iyo baarlamaanka iyo madaxtooyada isku celceliyeen muddo dheer taasaana keentay in muxuu ahaa kursigaas dib u dhaco laakiin ma jirin faragelin iyo dib u dhicis ay waday dowladda federaalka Soomaaliya maxay kula tahay marka kursigan waxaynu ognahay in sambalolshe uu hore ugu guulaystay doorashadii hore hadda maxay kula tahay ergada waxa ay kugu doorteen oo ay u arkeen inaad kaga wanaagsan tahay musharaxiintii kale runtii aniga waxaan ahay siyaasi dowladdii madaxweyne cabdullahi yuusuf iyo nuur cabdi ka ahaa wasiir mar labaad waxaan noqday xildhibaan 2012 isla kursigaana ku fadhiyey waxaan ahaa ninkii kursiga u baneeyey cabdullahi sambalolshe oo ka horreeyay asaga marka muxuu ahaa markaasna aniga ma tartamin oo muxuu ahaa balancega iyo kalaan balancega beesha gudaheeda ayaa si noqday
kabacdina aniga ma tartamin waa ka tagay laakiin waxaan ahay siyaasiga noocaasa oo kursigaana hore ugu fadhiyey horena ugu tartamay horena u hayay 2012 to 2016 marka arrintaas waxaan filayaa ninkii ka sheegay aad iyo ceeb wuxuu raadinayaa dulduleelo mana jirtaan qabaa nuur iidow bayle oo u waramayay wariyaheena jamaal axmed cusmaan isagoo ka jawaabayay eed ka timid dhinaca cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe taliyii hore ee nabad sugidda Soomaaliya. agaasimiye hay'adda nabad